الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يوسفنا تيم حد ما أنتي أنت كذب وحان ربا إن أن همبليه ما هذا السوجيديو ولا لها سمايستي من لماذا ركت جناعسي قبلك نبينا صلوات الله وسلام عليه شريعة دين وحي نقول ترتيسي إن أمضى أي شقيستان أو إن عيد بوحويدي سنين marka koobaad waxa la leeyahay waad ku mahadsantihiin in aad noqoteen dad midaysan oo u midaysan inay shaqeystaan umadoodan oo faa'iideeyaan waxaan kaloo ugu nasteexayn lahaa culaysyada jira ee inta badan ganacsatadu ay soo saaraan bulshada sida marka qaar kood in la urursado ganacsiga oo la iskoobo oo danyartii laga kooba ama culays lagu saaraa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga yaabaan oo iska ilaaliyaan midda saddexaad in ayna noqonin wax kasta kuwa ka shaqeystay wax kasta ay rabaan inay ka shaqeystaan in ay culimadooda ay weydiiyaan xalaasheedii xaaraanteeda ay nasteexa ka raadiyaan iyadan qofna waxba laga rabin iyadan qofna waxba lagu weydiisanin wamida afraadi xuquuqdii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulaha oo zakada ahaydna waa wax Ilaahay ku waajibiyay xoolahan ba Ilaahay ba siiyay sidoo alla ku siiyay waa in xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu leeyahay aad iska bixiso oo ina noqonin wax la shaxaado ama la farsameeyo in ma taqaana wax weeyaan aad iska ilaaliyeen midda shanaad ee u dambaysa waxa weey waxaan leeyahay ummadda waxaad u noqotaan dhabar iyo adeeg culaysidan faraha badan leh ummadda la saarayo cashuurahan tirada badan leh ee la saarayo in dhawqoogu meel gaadhaynin ee waxba ma taqaana qabsan kareenin ummadda in dhabar u noqotaan oo ka difaacdaan macallinkii baa cashuuran mehradii ama iskuulkii uu joogay baa cashuuran biyihii uu bixinayay baa cashuuran laydkii uu bixinayay baa cashuuran wadadii haduu maray gaarigu ku maray inta waa cashuurayeen hadeerna fariintii u dambeysay soo dhacday waxay ahayd waxyaalaha qofka ma taqaana tinooyinka ku saabsan marka uu iibsanay 5% in ay bixiyaan ilaahay baa ku dhaarshay ummadda ayaa u dhawaaqay oo hadli haddii idinkii dadka la mid aad kari kartaan cashuurahaasi ummad fara badan oo masaakiina oo waxa jirta arinta aanan kareynin in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii la isku kaashado oo ummadda dibka lagu hayo iyo dulmiga lagu hayo aad noqotaan kuwa yiraahda war waxa ummadda laga daayo aysan noqonin haddii culays idinka leedku saaro idinkuna bulshada ku saartaan Ilaahay waxaan weydiisanayaa subhanahu wa ta'ala inuu inoo barakeeyo midnimada iyo khayrka amniga iimaanka wajazaakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi